بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعنا وناكسن صاحب بيال هلكن وحلك وررك كسو دوادا ورك حلك وررك قضبدا داون دونتان وحكمدا Soomaaliya oo loo ogaaday in guud ahaanba hawadeeda laga celinayo dibna looga celinayo in ay maamulato hawada duulimaadyada sababtu maxay tahay tafaasiil dheeraad ah ayaan idinkaga haynaa shirka golaha wadatashiga qaran oo maalintii saddexaad ka qabsoomay magaalada Muqdisho qodob xasaasi ah oo shirka looga hadlay madaxda isku maandhaafay iyo guud ahaanba xogta ku gadaama shirkaasi ayaan idin soo gudbin doonaa qodobada kale aad daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya 5 askari iyo saraakiil ka mid ahayd ciidamadii weeraray xafiiska ra'iisul wasaare Rooblo isaga baxsaday xilli baaritaan ay ku socdaan ayaa daawan doontaa saaxiibayaal Puntland waxay si rasmi ah u ogaatay cidda ka dambaysa barakacinta dadkii ku dhaqnaa magaalada Boosaaso iyo kicinta xiisadaha colaadeed ee magaaladaasi waan idin soo gudbin doonaa dowladda Soomaaliya markii ugu horeysay waxay lacag ugu deeqday dowlad goboleedyada si loogu gurmado abaaraha $1 milyan oo dollar ayaana bilowday markani waan idin soo gudbin doonaa qodobadaasi kuwa kale ayaa daawan doontaa saaxiibayaal fadlan haddii aad nagu cusubtaan nagu soo biro subscribe saar like share la wadaag saaxiibada aragtida waa inoo muhiim commentiga nagu reeb waxaas naga xasuusina haddii aad joogto waqtiga salaadina soo gudatay waajibka rabbi kadibna dib ugu soo laabato daawashada muuqaalkan qodobadii aad daawateen oo dhammaystiran u diyaar garooba saaxiibayaal aynu ku bilowno Soomaaliya ayaa markan la ogaaday in guud ahaanba la doonayo in mar kale dib looga celiyo maamulka hawadeeda iyadoo saacadii ugu dambeeyay aad la iskula dhexmarayo wararka arrintaasi bidhaaminaya golaha sida la ogaaday xogo hoose oo la helana ay muujinayaan hay'adda duulista rayidka ah ee Soomaaliya ee loo yaqaan Somali Civil Aviation Authority ayaa sheegtay in maamulka hay'adda isku dayayaan sare u qaadida adeega hawada sare ka gadaal markay soo baxday cabsi baasan oo la xiriirta in hawada maamulkeeda laga celinayo dowladda Soomaaliya isku dayga sare u qaadida adeega hawada sare ayaa ku soo aaday iyadoo hay'adaha caalamiga ah International Civil Aviation Authority la yiraahdo iyo hay'adda kale International Air Transport Association ay ku muujiyeen walaac dhanka badqabka duulimaadka hawada sare taasi oo ka dhalatay digniin ah in gabi ahaanba la faray hay'adaha duulimaadka rayidka ah ee Soomaaliyeed in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku joojiyaan ayna ku qaataan talooyinka loo soo jeedinayo maadaama arrintan ay tahay caqabad dhanka duulimaadka hawada sare ah warbixin dheer oo soo saartay ICAO oo ah hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha duulimaadyada caalamiga ah 16 bishii December ee sanadkiina dhaafay ayuu ku boorisay madaxa maamulka sare ee Somali Civil Aviation Authority in isku dayga sare u qaadida ay ka dhalan doonto walaac weyn oo dhanka badqabka ah taasi oo gabi ahaanba la xiri doono maritaanka hawada sare ee Soomaaliya warbixintaasi dheer kadib hay'adda IATA ayaa 23 December 2021 sidoo kale u sheegtay hay'adda duulista Soomaaliya inay dib u dhigayaan qorshahan isla maraantana ay gabi ahaanba ka saaraan dukumiintiska qaldan oo la faafinayo waxa hore oo qorshuhu sanadkii 2017 shirka dhacay magaalada Mumbai ee dalka Hindiya lagu qorsheeyay in hawada sare ee Soomaaliya lagu wareejiyo dawlado kale ama shirkado gaar ah yeeshee arrintaasi ayaa fashilantay arrintan ayaa waxay keenaysaa in qorshihii hore ee fashilmay dib loo soo cusboonaysiiyo iyada oo lagu celinayo sare u qaadida adeega hawada sare isla maraantana taasi sare loogu soo celinayay 28 December 2017 6 January 2022 oo ku beegan maalinta berita ayaa la filayaa inuu dhaco shir aalada fogaan aragga ah oo soo qaban qaabisay hay'adda duulimaadka caalamiga ah u qaabilsan qaramada midoobay ICAO iyo hay'adda kale IATA taasi oo marti qaaday in guud ahaanba la qaado tallaabooyinkaasi go'aamin doona in gabi ahaanba maamulka hawada Soomaaliya laga wareejiyo arrintan oo walaac baahsan muujisa ayaa sii kordhaysa iyada oo Soomaaliya mar kale cabsi laga qabo in laga wareejiyo maamulka hawadeeda dhinaca kale markaanu eegnana shirka xubnaha golaha wadatashiga qaran ayaa maalintii saddexaad ka qabsoomay magaalada Muqdisho shirka xubnaha golaha wadatashiga qaran ee uu gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Roble ayaa maalintii saddexaad ka qabsoomay magaalada caasimadda Muqdisho shirka oo si gaar ah kaga socda xarunta Afisioni ee xeendabka garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada caasimadda Muqdisho ayaa la sheegay in ay ahayd maalintii ugu adkeyd ee madaxdu isu soo hor fariisteen madaxda qaarkood ayaa isku maandhaafay qodobada shirkan looga hadlayo waxaana xogtu ay muujinaysaa in hogaamiyaasha dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Galmudug ay aad kaga shaqeyn qodobada maanta oo dood adag ahaa 4 qodob oo miiska saaran ayaa kala ah hirgelinta heshiiska doorashada jadwalka caqabadaha iyo cabashooyinka hufnaanta
qodobka labaad oo ahaa falanqaynta iyo wadatashiga talooyinka iyo fulinta heshiisyada iyo habraacyada kii saddexaad oo ahaa go'aan qaadashada arrimaha kala duwan ee shirka hor yaalla iyadoo la tixgelinayo talooyinka iyo macluumaadkii maalinta koowaad ee shirka iyo soo bandhigidda qorshaha geedi socodka koowaad ee shirka dowladnimada xilliga kala guurka ah ayaa madaxdu la sheegay in guud ahaanba isku maandhaafeen sidoo kale shirka maanta ayaa waxaa qayb ka noqday xubnaha bulshada rayidka ah iyo sidoo kale xubno ka socda haweenka kuwaasoo ilaalinaya qoondada haweenka islamarkaana talooyinkooda ku biiriyey dhinacyada golaha wadatashiga qaran si kastaba shirka ayaa maalinta saddexaad lasoo afmeeray waxaana rajada ugu badan ay tahay in shirka lasoo gabagabeeya maalmaha soo aadan shirkan gabagabadiisa waxaa rajadu ay tahay soo saarista jadwal lagu midaysan yahay oo bidhaaminaya wakhtiga rasmiga lasoo gabagabaynaya doorashooyinka dalka iyo halka u jeedsanaya doorashooyinka iyadoo weli doodo adag ay ka taagan yihiin u dhaqaaqista doorashooyinka Soomaaliya warkayga ayaad guuleysha ku haysaan saaxiib yaal qodobka xiga markaanu eegnana 5 ka mid ah askartii iyo saraakiisha ku lugta lahayd weerarkii lagu qaaday xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa la ogaaday in guud ahaanba ay baxsadeen xogo hoose aan helna ayaa muujinaya in guddigii uu ra'iisul wasaare Roble u xil saaray baaritaanada weerarkii lagu qaaday xafiiska ra'iisul wasaaraha ay wadaan su'aalo dhowra xasan dhiciso oo taliye ka ah xarunta madaxtooyada Soomaaliya ayaa la ogaaday in la kulmeen isla markaana su'aalo ay weydiiyeen balse xogta ayaa dhinaca kale muujinaysa in 5 ka mid ah saraakiishii iyo askartii ku lugta lahayd weerarkaasi ay guud ahaanba isaga baxsadeen lama oga halka jaanic cirib ay dhigeen asaatee ciidamadan ka tirsanaa xoogga dalka ayaa la ogaaday in guud ahaanba isaga baxsadeen iyagoo cabsida ay qabaan ay tahay in ay ku lug lahayeen weerarka isla maraantana ay wajahaan caqabad waxaa sidoo kale baraha bulshada aad la iskula dhex maraya in weli ay socdaan baaritaano iyo ku raad joogidda saraakiishii askarta ku lugta lahayd weerarkaasi ra'iisul wasaare Roble ayaa guddiga 5 qof ka kooban ee u xil saaray arrintan faray inay qaadaan tallaabo walba ay ku soo cadeynayaan intii ku lugta lahayd weerarkaasi si sharciga loo horkeeno isla maraantana loola tigsado cid walba waxa ay ka mudan tahay weerarkii lagu qaaday 27 Diseembar xafiiska ra'iisul wasaaraha Roble ayaa xafiiskiisa weerarkii lagu qaaday waxa uu sababay in guud ahaanba lagu tilmaamo mid afgambiya waxaana walaac baahsan ka muujiyay xubno kala duwan oo ay ka mid yihiin midowga murashaxiinta mucaaradka iyo xubnaha beesha caalamka bartamaha ayaa ka tilaabayna gabagabadana oo sii dhawaanaynaa markan haddii aynu eegnana maamulka Puntland ayaa si rasmi ah u ogaaday cidda ka dambaysa weerarada isdaba joogga ah ee ka dhacaya magaalada Boosaaso wararka been abuurka iyo kicinta dadweynaha magaaladaasi ciidamo ka tirsan kuwa booliiska dowlad goboleedka Puntland ayaa waxay xirxireen magaalada Boosaaso ay ku xirxireen qaar ka mid ah wadayaasha tagaasida kadib markii lagu eedeeyay in ay warar been abuur ku faafiyeen si dadku u barakacaan darawallada la xirxiro oo gaaray ilaa 3 ayaa la sheegay inay ahaayeen kuwa hormuud u ahaa qalqalgelinta amniga magaalada Boosaaso isla maraantana bulshada ku wacyigelinayay inay magaalada isaga firxadaan maadaama ay ku sheegeen in magaalada ay ka jirto cabsi amni oo baahsan taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Gaashaan Lasar Cabdiqaadir Jaamac Dirir oo shir jaraa'id ku qabtay ayaa waxa uu sheegay in guud ahaanba ay tahay waxba kama jiraan wararkaasi waxaana uu wacd ku maray in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono cid walba oo ku lug lahaata tallaabooyinka lagu kicinayo dadweynaha waxa intaas uu ku sii daray in loo baahan yahay in dadka ay qaataan tallaabo walba oo dejinaysa xaaladda iyo shacabka balse aan loo baahnay in kaalin firfircoon ay ka geystaan kicinta dadweynaha dagaalkii dhex maray ciidamada Puntland iyo kuwa BSF ayaa wili haarihiisa laga dareemaya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxaana jirta cabsi baahsan oo ka jirta gudaha magaalada Boosaaso kuwaas oo la xiriira dhanka amniga iyadoo cabsidu ay tahay sidoo kale halkaas ay ka dhacaan weeraro kale oo khasaare geystay iyadoo saacadihii ugu dambeeyay sidoo kale ay soo ifbaxeen warar sheegaya in maamulka Puntland ay weerar rabaan mar kale Maxamuud Cismaan Diyaano hogaamiyihii BSF xilka laga qaaday oo aad u dhaliishan xukuumadda Saciidani gunta iyo gabagabada ayaa joognaay saaxiibayaal dowladda Soomaaliyana waxay markii ugu horeysay dhaqaale ku taageertay dowlad goboleedyada si wax looga qabto xaaladda abaaraha ee ka jirta guud ahaan bagayiga Soomaalida xukuumadda ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa lacagtii ugu horeysay ku wareejisay xubnaha ka kala socday dowlad goboleedyada dalka si loogu gurmado dadka abaaro ay ku habsadeen munaasabad ay ku wareejinaysa wasiirka wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka Khadiija Maxamed Diiri oo ka dhacday xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa waxa ka qayb galay wasiirada gargaarka dowlad goboleedyada iyadoo goobjoog ay ka hayeen xubnaha wasiirada guddiga gurmadka degdega ah wasiirka gargaarka maareynta masiibooyinka Khadiija Diiri oo ka hadashay munaasabadda qaybinta lacagtan
ayaa sheegtay in loogu talagalay gurmadka abaaraha isla markaana loo baahan yahay in loogu gurmado dadka abaaruhu ku habsadeen. gobollo badan oo dalka ah ayaa weli laga soo warinaya inay ka jirto abaaro, waxaana dhashay khasaare ka dhashay abaarahaas iyadoo dad badan iyo duunyana ay u dhinteen abaaraha ku dhuftay geyiga Soomaalida iyo gobollo ka tirsan dalka. warkaad ka daawaneysaan xulka wararkan waa naga intaa, fadlan dad nagu cusubtaan nagu soo biiro subscribe saartan kulan dambana amaana Allah.